sida uu baahiyey telefishinka caalamiga ee TRT World, taliska dhexe ee ciidamada Maraykanka ayaa sheegay in weerarka wadajirka ah ee Maraykanka iyo Israa'iil ku qaadeen Iiraan uu yahay isu ururintii militari ee ugu bilaarneed ee Maraykanka ka sameeyo Bariga Dhexe muddo 10 sano ah. Taliyaha ayaa sheegay in howlgalka oo galay maalintiisa afaraad ay ka qayb qaadanayaan in ka badan 50,000 oo askari, 200 oo ah diyaaradaha dagaalka iyo 2 markab oo xambaara diyaaradaha dagaalka. Sarkaalka wuxuu sheegay in tan iyo markii uu howlgalka bilowday, ciidamada Maraykanka iyo Israa'iil ay beegsadeen ku dhawaad 2,000 oo bartilmaameed oo ku kala yaala Iiraan iyagoo isticmaalay in ka badan 2,000 oo gantaal. Dhanka kale, Iiraan ayaa qaaday weeraro jawaab celin ballaaran, iyadoo dirtay in ka badan 500 oo gantaal oo ah kuwa palastiga iyo 2,000 oo ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, sida uu sheegay sarkaalka oo ah Kopa. Generaalka ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada Maraykanka ay burburiyeen awood badan oo Iiraan ay leedahay, isaga oo xusay in ilaa hadda la burburiyey 17 markab oo Iiraan ay leedahay. Xiisadda gobolka ayaa si weyn ugu sii daraysa kadib markii Maraykanka iyo Israa'iil ay Sabtidii bilaaween weeraro ballaaran oo ka dhan ah Iiraan. Wararka ayaa sheegaya in ku dhawaad 800 oo qof ay ku dhinteen oo ay ku jiraan hogaamiyaal sare oo Iiraaniin ah iyo carruurtii lagu xasuuqay dugsigooda. Iiraan ayaa iyaduna qaaday weeraro gantaalo iyo drones ah oo ku wajahan Israa'iil iyo dalalka Khaliijka ka tirsan oo hooy u ah saldhigga Maraykanka. Sarkaalka ayaa sidoo kale xaqiijiyey in 6 askari oo Maraykan ah lagu dilay weerarada Iiraan gudaha dalka Kuwait.